ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. qodobo aad u xiiso badan ayaan maanta idinla wadaagi doonaa. qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo markab sida hub u dirtay magaalada Kismaayo iyo xiisad ka taagan magaaladaasi. siday ku dhacday in gabar lagu qabtay magaalada Gaalkacyo la sheegay in ay guursatay gabdho kale oo ku sugnaa gudaha magaalada. macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen, sida ay ku tagtay Gaalkacyo iyo hubka lagu soo qabtay, waxyaabihii ay ku qabanaysay iyo qaabka ay u adeegsatay soo xirigelinta gabdhaha ayaan idin la wadaagi doonaa. macluumaad iyo xogo dheeri ah oo ku saabsan dowladtuskii Muuse Biixi uu ku sameeyay magaalada Hargeysa iyo digniinta u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya. siyaasi Faarax Macalin oo bixiya xog iyo macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan xiisadda u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo dadka ka dambeeya. Axmed Madoobe oo jawaab iyo digniin kulul u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya. ONLF oo war cusub ka soo saartay xiisadaha weli ka taagan ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. dowladda federaalka oo amar cusub dul dhigtay hay-adaha caalamiga ee ka howlgala magaalada Muqdisho. meedka gabar yar oo laga helay duleedka magaalada Cadaado ee gobolkaasi. iyo Iiraan oo ku dhawaaqday go'aan culus oo ka nixiya dowladaha Yurub iyo Mareykanka. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorkarnoon. macluumaadkii aan idiin dulmarnay oo idil ayaan goordhow kula wadaagi doonaa iminkana warkii oo faahfaahsan. sida aan ku helayno wararka waxaa barqanimadii maanta dekedda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku xirtay markab sida hub iyo gawaari dagaal kaasoo la sheegay inay dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. warbaahinta ayaa waxay ogaatay in hubkaasi loo geeyay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka. wararka ayaa sheegaya in mas'uuliin ka tirsan kuwa Jubbaland ay isku dayeen inay hor istaagaan hubkaasi, balse waxaa la sheegay inay ka go'aan sareeyeen ama ay ku gacan saareen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan halkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa taliska AMISOM kala hadashay arrinta hubkaasi oo markii dambe ay la wareegeen ciidamada militariga ee ka howlgala gobolada Jubbooyinka. intaasi kadib waxaa la sheegay in go'aan degdeg ah uu qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaas oo la sheegay in bandow uu ku soo rogay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ka tirsan kuwa Jubbaland ayaa lagu daadiyay wadooyinka waaweyn magaaladaasi. sidoo kale ciidamada ayaa halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan kuwaas oo lagu ilaalinayo guud ahaan ammaanka. arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli xalay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay habraaca doorashooyinka Jubbaland iyo sida loo wajahayo doorashadan oo isugu jirta midda baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa la filayaa inay qabsoonto bisha Agoosto ee soo socota. mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa la qariyay ayaa waxa uu ka warramayaa xiisadda ka taagan magaalada Kismaayo. waa kan Kismaayo faanka waxaa ka jira sidaan war ku maqalnay maaragtay dekedda waxaa ka soo degay markab oo hubbooda iyo baabuur maaragtay gaashaamada dagaalka. Axmed Madoobe marka uu ka hortagay kadibna AMISOM taa hor istaagtay, dowladana maaragtay amarkaasna siisay tiraahday. kadib magaalada bandow uu kusoo rogay oo meel kasta way xiran tahay. intaas waxaa ka horeysay xalay markay dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay warqadda oo maaragtay doorashada sida u dhici doonto. isagana xalay warqadda dabcan uu soo saaray uu maaragtay ku radinayo warqadda dowladda federaalka ee soo dirtay. kadib isagu wuxuu isleeyahay ciidamo federaal ah imaanaya, kadibna maaragtay rabitaankiisa iyo suurada maaragtay inay ku shaqeyn waayaan waxaasuu ka cabsanayaa. marka sidaan maaragtay xogaha aan ku maqalno qaar ahaan Kismaayo ay sheegayaan aan kasoo xiganay aan maqlay in oo sidaas sheegtay loo wado ciidamada federaalka oo meesha jooga loo wado hubkaas, laakiin isagu wuxuu isleeyahay ciidamo federaal ah imaanaya kadib meesha lala wareegaa. macluumaad kale oo dheeri ah ayaa inoo soo socda, balse markan Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxaana si kulul uga hadlay go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dowladda Guinea xilli uu safar ku joogay dalkaasi. waxa uu sheegay in markii ay tageen isaga iyo wafdigiisa dalkaasi Guinea si weyn loogu soo dhaweeyay, isla markaana warka ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya uu yahay mid la iska yiri sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland in marnaba aysan u dulqaadan doonin qorshaha ay waddo dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana tallaabo kasta ay qaadayso. dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in xiriirka u jirtay dowladda Guinea. waa kan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya arrintaasi. Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxaa u casuumtay Soomaaliland ma geydo maamuuska intaa leeg in lagu soo dhaweeyo milgahala maahee maxaa maamuuska u siisay. waxaan la yaabanahay
ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goobta intaa leeg waxa ku kalifaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qarankaa intaa leeg uma qalmo maamuuska waa goobta intaa leeg waxay u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay 30 sano u dambeeyay wixii ka dhacay dalka iyo Soomaaliland wixii loo geystay dad xoggaal u ana way yihiin dhamaantood garan maayo iyagoo taa hore qabay waxay tan ugu dareen waa ta saddexaad Soomaaliland taariikhdeeda way yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo way ka warhayaan markii la oran jiray Soomaaliyadii hore ee barigaanu ka mid ka ahayd inta taariikh lagu faana miisaankeeda Soomaaliland baa lahayd waa kow ma jirin dalka Afrikaana oo ku yiri isticmaalkii u yimid saanta cadda badan wax kula seexan anigu kula seexan mayno ma jiro dal Afrikaan oo yiri dadkaaga ku dhalin gabadhaadu ilmaha calooshida ku dhigay dalka iyaga ee markay fooshahay naga dalka oo yiri ma jiro markaanu doono xorriyadda waad helaysaa anaga nama goysanaysa heshiis baan ku nahay inaad la joogto waa saddex qodob oo Soomaaliland u gaaran markii isticmaalku qarnigii 18aad dabeeqadii Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed lama wadaagto ta kale ee ugu faan weyn adduunka oo dhan ka waraya waa halgankii daraawiishta Soomaaliland burde ahaa oo ahayd oo taleex waa Soomaaliland oo ciidankii dagaalamay Soomaaliland u ahaa waa kii Afrika ugu horeeyay ee diyaarado soo kacaysto macluumaad ku saabsan Faarax Macallin oo arrimo xasaasi ah ka hadlay iyo Axmed Madoobe jawaab iyo go'aan degdeg u qaatay ayaan goordhow eegi doonaa balse markaan galkacayo waxa aad baraha bulshada u qabsaday warbixinta la xiriirtay ciidanka ammaanka ee Galmudug oo warbaahinta u soo bandhigay haweeney la sheegay inay iska dhigi jirtay raga taas oo in muddo ah ku nooleed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug marka laga hadlayo Soomaaliya kuma cusba sheekada la xiriirta in qof rag ah uu isku soo ekeesiyo qof dumar ah isagoo xiran dharka dumarka gaarka ah ay u leeyihiin balse sheekada cusub ee aan horey loo arkin ee hadda soo korortay ee la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in qof dumar ah uu isku soo ekeesiyay qof rag ah isagoo iyadoona xiran dharka ragga ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada Gaalkacyo howlgal ay ciidamada booliiska magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaybta dawlad goboleedka Galmudug ay ka sameeyeen koonfurta magaaladaas ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan qof dumar ah isla markaana isku ekeysiin jirtay inay tahay rag taas oo lagu magacaabo Deeqa Cabdullaahi Aadan hayeeshee la baxday magac rageed kaas oo ah Deeq waxa ayna sidoo kale ay wadatay haweenadan gacanta lagu soo dhigay hub iyo qalab loo ekeysiyo xubinta taranka ragga taas oo ay adeegsan jirtay waxaana xusid mudan in horey ay u soo guursatay 3 haween ah oo ay horey u kala tageen iyadoo iska dhigaysay ama isku ekeysiinaysay qof rag ah Maxamed Nuur Cali Gadaar taliyaha booliiska degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu warfidyaanka u sheegay in baaritaan dheer kadib ay u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan qofkan dumarka ah kale saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo Deeqo aad arkaysaan Deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo Deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno Deeq oo magaciisu Deeqa yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo cadeeyay ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxaan ay nin ahaan u isticmaalaysay iyada waa su'aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda afjooga lama adeega iyada baa joogta si bulshada Soomaaliyeed loogu shaki bixiyo sheekadan la xiriirta Deeqa Cabdullaahi ayaa warbaahintu waxa ay su'aalo la xiriirta jiritaanka eedahan ay hor dhigtay Deeqa Cabdullaahi inta lagu soo eedeeyay oo ay jidha dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa la dukaankan ku waardiyeystay meel go'an meel kondare
qofna kuma dilaano qofna wax kuma yeelo gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda haligaysa baan gurigeyga keenaano. sheekadan ayaa aad looga hadalhayaa baraha bulshada iyadoona dadka ay siyaabo kala duwan ay kaga falcelinayaan dhacdadan ugubka ku ah geyga ay degto Soomaalida. Yuusuf Maxamed Axmed. markana faarax macalin dawaare siyaasigaas ayaa hore waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya waxa uu shaaciyay dalalka ka dambeeya xiisada xoogan ee haatan u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. faarax macalin oo wareysi siinaya idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ay yihiin dalalka hoosta ka horinaya xiisadaasi. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya ayaa xusay in sirdoonada dalalkaasi ay ku xoogeysteen Nairobi ayna ay gadaal ka riixayaan muranka dowladda Kenya ay gelisay biyaha Soomaaliya. waxaa kale oo carabka uu ku dhiftay in Kenya lagu leeyahay deymo badan sidaasna ay uga faa'iideysanayaan dalalka Carabta oo uu xusay in faragelin ay ku hayaan arrimaheeda. sidoo kale waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay horey lacago ay u siiyaan dalalka Itoobiya iyo Eritrea si ay uga qayb qaataan xilsadan balse madaxda dalalkaasi ay lacagta ama lacagihii ay qaateen isla markaana baarlamadii ay uga baxeen sidoo hadalka u dhigay. marka hore aan wada dhageysano codka faarax macalin iyo wareysiga uu bixiyay. waayahan dambe waxaa ku soo batay mukhaabaraadka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ka dhex shaqeysta Nairobi. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay rabeen markii hore inay afwarkii iyo isticmaalaan ninka yiraahdo Abiy oo colaadii Soomaalida saa loo sii wado burburintii iyo kala qaybintii iyo kala qoqondeyntii Soomaalidana saa loo sii wado sida ay Tigreed markii hore u wadeen. Abiyna wuu ka qaatay lacagta u keenan magac la yiri afwarkina wuu ka qaatay magac aluu yiri dhibka Soomaalida kama in shaqeyn waxay dhahan Soomaali wanaageeda ka shaqeyn. faragelintii Carabta ma bilaabanin maanta. faragelintii Carabta 70 sano سنة دجال كمر كل الجلية ضاع خستي ورقدي صوب هذا أو حسرتها أو دمبو إياه كدمبي دنت كله هين وحيد إنه شسيال كصومالي صوب بحن محاد كودي سوق عالم كأيها لينا يا كودنا نتجي دنت لقى حانا وحوي شسيال كصومالي وبدل الاحتياط ريجا مركي ماشي الجلية بدل الله هلا لجارو بلاتفورم كيسي wax kasta oo biloo hagaajin maraakibta intana way ka marayaan afarta gees way ka marayaan way ka buuxsanayaan way ka tagayaan toos booga soo baxay ceelka waxa markay soo maraan nin maraya state of homes galiya oo laabkaasi Kuwait iyo maxay Dahraan iyo noloshooda iyo khatar ku tahay ee shidaalkan waxa ka dhaadhacsan muddo kadib inuu maaragtay uu suuq beeli doono taa awgeed ay rabin in marnaba la soo saaro. macluumaad kale oo dheeri ah ayaa inoo soo socda. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya u diray jawaab kulul iyo digniin ku aadan shantii qodob ee xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. maamulka Jubbaland ayaa sheegay inaysan marnaba gorgortan aysan dowladda federaalka kala geli doonin arrimaha ku aadan doorashada gaar ahaan guddiga doorashada, habraaca doorashada, goobta doorashada, qaabka xulista xubnaha baarlamaanka iyo amniga doorashada deegaanada Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay caadeysatay ku xadgudubka dastuurka dalka iyada oo sida uu sheegayna lagu doortay waxaana maamulka uu sheegay in wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhashay faragelinta Jubbaland ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadi doonto mas'uuliyadeeda. ugu dambeyntii Jubbaland ayaa shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka ugu baaqday in si dhow ay ula socdaan waxay ugu yeertay siyaasad guracan oo ay wado dowladda federaalka ee Soomaaliya. markan haddii aan eegnana war ka soo baxay jabhadda ONLF ayaa waxaa looga hadlay isbedeladii ugu dambeeyay ka dhacay dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan colaado ka soo cusboonaaday halkaasi. ONLF ayaa baaq nabadeed u dirtay beela ku dagaalamaya deegaano iyo degmooyin hoostaga ismaamulka Soomaalida Itoobiya. war saxaafadeed ka soo baxay ONLF ayaa arrintaasi lagu sheegay. dhinaca kalena xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa amar culus waxay dul dhigtay hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. arrintan ayaa la xiriirta magaca garoonka Aadan Cadde International kaas oo la sheegay inuusan ahayn garoonka caalamiga ah ee Muqdisho balse uu yahay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa lagu wargeliyay dhammaan hay'aduhu inay isticmaalaan magaca saxda ah ee ku aadan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde. markana wararka ugu dambeeya haddii aan eegnana dowladda Iiraan ayaa shaacisay inay sare u qaaday heerka uraniumkeeda tayeysan. arrintaas ayaa kusoo beegmaysa toddobaad kadib markii uu dalkaasi u shaaciyay inuu jibiyo qodob ka mid ah heshiiskii 2015 kaas oo ku aadan xaddiga loo ogol yahay ee keedkiisa uraniumta ee tayadeedu ay hooseyso. go-aanka ay gaartay xukuumadda Tehran ayaa qayb ka ah dadaalka ay ku doonayso inay cadaadis ay ku saarto dalalka Yurub si ay uga qafiifiyaan cunaqabateynta Mareykanka ah ee wax u dhintay dhaqaalaha dalkaasi Iiraan. go-aankaas ayaa waxaa la sheegay in uu ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Abbas Araghchi
uu go-aankan ku dhawaaqay waxaana uu sheegay inay daneynayaan ilaalinta heshiiskaas balse wasiirka ayaa wadamada Yurub ku dhaliilay inay ku fashilmeen ilaalinta go'aamada ku aadan heshiiskan. wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya oo aad kala socoteen shabakada wararka maanta waa naga inta